waxaan soo qaadanaynaa qiso ka dhacday Muqdisho 1995 oo dulmiga quruwaaga ah laba nin oo qaraabo ah oo ay dhex martay saaxiibna labada nin magacyan u bixiyay Maxamed iyo Muuse la kala yiraahdaa saaxiib bay ahaayeen isku shaqana way ahaayeen waxay ka shaqaysan jireen chatka dadka chatka ka ganacsada oo iibiya oo dadka usi ka sii iibiya ahaayeen Maxamed iyo Muuse caado waxa uu ahayd in ay guryaha iyagu ay leeyihiin chatka ku cunaan oo ay ku qaylaan labadooduba waa guursadeen Muuse wuxuu guursaday oo qadartu ku dhacday gabar aad u wanaagsan qurux badan dabeecad badan dadnimo badan hufan waxaan ku yiraahdaa ii sheeg intii gabar looga baahnaa Ilaahay siiyay Maxamed waa guursaday laakiin asaga guurkiisa wuxuu la kulmay mushkilad iyo kulayl iyo qaylo buuq fara badan iyo mar walba in gartooda lagu jiro aakhirkiina waxay keentay inuu xaaskii ay kala tagaan oo Maxamed oo asna kali iskaablo ku soo noqdo maadaama de guryaha la wada tagi jiray gurigii waxa loo batay marka in lagu qaylo Muuse oo waqtiga inta badan lagu qaato Muuse gabadhu qaba Xamdi baa la oran jiray waxba uma dhalin qiyaastii 2 sano meelaha soo qaba wax caruura uma dhalin fadhigii badnaa oo guriga Muuse lagu qaylayay oo la fadhiyay iyo communication ama xiriirkii badnaa oo de guriga iyo dhex marayay Muuse iyo Maxamed iyo xaaskiisa waxay soo jiidatay Maxamed in gabadhii Muuse ay ku fiican tahay in asaga ila noolaato inuu ku fakaro oo ka dulbiyo waana saaxiibkiis ay isku shaqeeyeen Maxamed wuxuu u fakiray hab wala yaabay gabadha wanaageedii quruxdeedii hab dhaqankeedii gaarinimadeedii si guriga adeegayso wixii oo dhan haduu qiimeeyay saaxiibkiis la fiiriyay wuxuu u qaatay saaxiibkiis inuusan ku fiicnayn gabadha inuu haysto waxay kula qumanaatay inay asaga tahay in gabadhan uu ku haboon yahay inuu guursado saaxiibkiina uu ka dulbiyo arintan marka muddo qalbigiisa ku jirtay oo u fiirsanayay gabadhii dhaqaaqeeda hadalkeeda muuqaalkeeda si hoose ula socday taasoo jacayl waa aad iyo aad u badan gelisay iyo soo saaxiibkii xaas way tahay dareenka ku dhashay wuxuu Maxamed uga faa'iideystay waqti Muuse aaday Nairobi oo shaqadii darteed uu aaday soo maaragtay maxaan ku yiraahdaa shaqadii hawlo waxan ma Nairobi uu aaday Jaanisna uu helay asagoo inuu gurigii kaligiis fariisto oo ay gabadhii dimaashiisa ahayd oo waqti gaar u helo arintii markay muddo socotay oo uu gurigii ayay la qumanaatay inuu markaan fikradiisa soo gudbiyo Maxamed wuxuu ka fakiray habka kaliya oo ku dulmin kara saaxiibkiisa in ay tahay inuu kala dhaciyo Xamdi inaa Muuse dhalay oo nin dhalaayaba ahaynba arintaas uu markay kala dhaciyay Xamdi oo u sheegay in Muuse oo saaxiibkiisa uu arintaas ay haysato xaaskii Muuse Xamdi way la yaabtay waxa arinta ay ma sheegin uu ku celay waxa arinta waa qarsoodi dad badan ma oga aniga asaga isloog aniga asaga saaxiib ah aduna ha sheegin Muuse arintaas waa loo cadeeyay dhaqaatiir badan buu u tagay ilaa 4 gabdhood 5 gabdhood oo ka horeeyay soo guursaday min dhalaayo oo maaragtay awlaad laga sugaayo maahan marka hadda saas ugu anigana waqti ka lumay mar rabo in wax ku qariyana mar rabo laakiin ballan qaad adiga inaad iga sheegin waa ballan qaad inaysan ka sheegin markaas oo arintaas ugu bandhigay oo ninka saaxiibku caruur ma dhalayo nin hadda laga sugayana maahan hadii maadaama hadda 2 sano aad la joogtay waxaan goostay inaan kuu sheego adigu arinta ay xafido oo aan saaxiibkiisu ka haydiyo way ka ballan qaad habeenka Xamdi caloosheeda waxa galay maadaama nin saaxiibkiisa ah oo de aan waxba u kala duwaneyn oo arinta u sheegay in arinta xaqiiqad tahay intii Muuse Nairobi ku maqnaa waxay ka fakaraysay sidii arrinka
ay uga dhex bixi lahayd oo ay guriga muuse uga tegi lahayd waxayna goosatay sida si kastaba ha noqotee in guriga muuse ay ka baxdo markii muuse soo noqdo oo ay ka codsato in uu furo hadduu diidan ay la dagaalanto maxamed intii muuse maqnaa arrintaas dhowr jeer kale ku soo celisay xamdi oo arrintaas aad ii sheegtay saxiix ma tahay waa ugu dhaartay oo wuxuu yidhi arrintaas waxaa waay haddaa aaminaysa waa sidaa waxaan kaa khaldayana ma jiraan xamdi markii uu soo noqday muuse waxay u labistay dagaal iyo inuu furo wax walba oo xumayn kara ayay isticmaashay hadal iyo ficil markii dambe xataa waa isdilaynaa muuse oo arrintii la yaabay waxa guriga ka dhacay intuu maqnaa iyo isbeddelka degdeg yaa saaxiibkii la tashaday saaxiibku la tashanaya waa ninkii fidnada abuuray oo wuxuu u sheegay in xaaskii ay arrintaa taagan tahay mashaakil badan guriga ka jiro loona baahan inuu gacan ka geysto muuse oo maxamed oo arrintaas kolley sugayay in muuse ula imaan doono wuxuu kasii fekeray taladu sii bixin doono hadhow wuxuuna sii qorsheeyey khidad kale oo uu kusii kala fogeynayo muuse iyo xamdi markii muuse taladii usoo bandhigay oo inuu arrintii gurigii kacdoon ka jiro oo gabadhii ay isu kacsan yihiin oo xaaladdu adag tahay uu sheegay ayuu maxamed soo bandhigay fikir kale oo ka duwan oo uu ku sheegay saaxiibka uu leeyahay muuse de anigu intaad maqnayd anigu guriga waan tegtegi jiray anigu kugula talin maayo gabadha inaad sii haysato leanno anigu guriga intaad maqnayd baan tegayoo waxaan arkaya waxaan wanaagsanayn waxaan arkaya xiriiro fara badan waxaan arkaya dhaqdhaqaaq fara badan marka waxaan u malaynayaa gurigaan inuusan guri ku ahayn gabadhaan dad kale la socotaay oo xiriir kale ku jirtaay niyoo ka tasho aniga saaxiibtinimada haddii aan waxba ku qarin maye ka tasho ku yidhi muuse oo bareshar badan saarnaa oo dhinaca guriga ah waxaa uga sii dartay hadalkii saaxiibkii u sheegay intuu maqnaa oo isaga dhigay inuu xabiib leeyahay oo uga warramayo gurigii in gabadhii gogol dhaaf samaynayso saaxiiba ay yeelatay intuu guriga ka maqnaa wuu qaadan waayo arrinkii wuu ku soo celiyey wuxuu niyow arrintaa anugu gabadha ugama tegin markii aan tegayey iyo caddeeyo xaqiiqada iga sheeg muuse wuxuu ugu soo koobay nin weyn suu waxba ogyahay ugama sheego anigu waan kula hadlay gurigaas guri kuuma aha haddaad reer adiga aad u qabto inuu keligaa ku yahay kuuma aha haddaad haysanaysana hayso haddaad ka tegaysanaysa lakin anu taladan ku siiyey waxa weeye dumarku waa badan yahay haddii iyada way ku leedahay fur anuu ma arko xalaas gurigiisa meesha inuu yaalo muuse oo u qaatay in saaxiibkiis uu maaragtay tale wanaagsan oo ehelnimo uu siiyey sidiibuu maaragtay ii sheegaan yeelay gabadhii baresharkeedii iyo baresharkii saaxiibkiis dhinaca kale ka saaray oo gabadhii shaki ka geliyey in gabadhii aysan nidaamkii gurigii iyo isaga gaar u ahayn wuxuu goostay inuu gabadhi iska sii daayo muuse intaa kuma ekaana intuu dhinaca kale ka wareegtay oo gabadhii xamdi la hadlo wuxuu yidhi ninkii inuu kufuro wuu doonayaa laakiin waxaad samaysaa inuu kugu noqduu rabaaye ha kala reebin waxaad tiradaa waxayga warqadda igu wada qor wax ii kala haraya ma jira yuusan kugu noqon inuu kugu noqdo ka fekeraya mar kale iyaduna go-aan qaadato ay tiri waxay maba ii kala haraane 3 daqiiqood halkaa ii safar wax ii kala haraya ma jira soo noqon mayno muuse oo shaki kala dhinaci kale kaga jiro bareesharkiina uu dhinac ka saaraya waa aqbalay oo gabadhii waa wixii ka dhexeeyo dhan buniiska u saaray waa lagu kala tegey markii la kala tegey marka maxaa dhacay maxamed damtii uu markii gabadhadan qof u kala geeyey waxay ahayd inuu gabadhan asaga u haro saaxiibkii uu maaragtay ku dhuftay oo ku khiyaameeyey iyadii uu iska hor keenay wuxuu bilaabay marka xiriir buu bilaabay inuu gabadhii gurigeeda ugu tago iyadoo bil ka soo wareegin inuu arrintii si saaxiibtinimo camal marka hore guriga ugu tago kadibna oo u bandhigo inuu doonayo maadaama saaxiibkii ay kala tageen uuna yaqaano shakhsiyadeeda iyo qiimaheeda inuu guurbu usoo bandhigayo jacayl arrinta xamdi waa la yaabtay waxay ku fekertay ninkan maadaama uu ninkii saaxiibkiis yahay aad shala soo kala tagteen wixii aad kala tagteenna asagu uu kuu soo dhigay miiska oo ahayd in ninkaan saaxiibkiisu dhigan
كيف جوسن كذا هذا حوالها ويرجع وريج سوا كوريج تمر كده رنت وش أكتر حاسس ورال هنوكم مجرسين يتعين لكم مقالي كره نين كي جوري صاحب كيسة هاي نين كي جوري نين كي سيرتي سهيات هاي وحيد كان حيوانيين أنا ديارو ما هنا ذيك جوسن تعين لكم الموضوع هاي كره هو حلاي ماشي كوضع محمد وحلقة ساري واي جوري حمدي وكهري واي تعين له على بعض guriga wuxuu dhex bixi waayay telefoonku ka dib maxaan ku wada telefoon ma jirin xiriirkeedii baa zaid ku noqday waaga telefoon de mobile ma jirin qofka dad doonaysa inay guriga wada tahay marka in guriga noqoshadiisii iyo booqashadiisii baa zaid noqotay markii muddo 3 bilood ka soo wareegtay maxamed waxa ka shifmay khidadu sameeyay sababta guriga laga saari waayay inuu gabadhii jecel yahay la ogaaday inuu doonayaa la arkay waxa dib u soo wareystay xamdi iyo muuse ila waa la kala tagay maxaan ku tagnay baa la isiiri sheekadii maxamed baa soo baxday waxa la ogaaday wixii maxamed ka shaqeeyay labadooda inuu ahaa injineerkii farsameynayay shaqadii guriga ka dhacday iyo sidii u dhacday labadaba arintii marka ninkii muuse waa qaadan waayay markii cadaatay sheekadu meesha ka bilaabatay waxay ku dhamaatay muuse waa qaadan waayay wadankana fawd iska ah wuxuu goostay ninkaas gurigiisa inta dumiyay haddana asagii guriga dhex saari laayay inuu kharajiyo qorigu soo qaato ninka xabado ku dhufto ma dhiman waqti dheer buu istaal ku jiray soo naafa in uu noolaa qofkii u dambeeyay sheegay oo baralaysa dulmiga marka noocaas oo ka dhex dhaca dadka wanaagsan oo ilaahay isku dooray oo qofkooda wanaagsan yahay dad dulmiya jira oo noocaas oo kale u dulmiya wuxuu ka mid yahay waxyaabaha guriye badan dumiyay dadka ilaahay baa isugu tala galay isku qiimo maaha isku miisaan maaha isku shakhsiyad maaha qof buu dheelitiraya oo miisaankiisa haya hadaa adigu marka dhex gasho oo nin wanaagsan gabar uu qaba aad taahdo bal ninka wanaagsan gabar tara ka qaad ama gabar wanaagsan oo nin wanaagsan oo ama gabar wanaagsan oo nin aan wanaagsanayn oo qabaad aragtid ha ku fakirin marna inaad dulmisid oo aad ku fakirtid dadka inaad kala geysid shariicada islaamku waa ka xaraan aqliga maxaan ku yiri bini'aadanku waa ku xaraan dhaqankana waa ku xaraan dumarku waa badan yihiin iyadoo kala doono waa yimisid waan hubaa haddii aad gabar calaamad wanaagsan ku aragtay oo is leedahay way ku wanaagsan tahay inaad helisid calaamadaha aad ku aragtay mid leh hadaad doontid laakiin midna ilaahay xalaasha guurka siiyay waxay ku qabsan raali ku ah u degan qofkii dhex gala ama ka shaqeeyo hada aakhirana naarba ku sugaysa adduunkana waxa laga yaabaa ilaahay kugu fashiliyo sida ninka uu fashilmo kale oo degdeg ciqaabta ay ku soo degdegto marka aan ilaalino inaan guryaheena aan ku ilaalino ilaahay suu ku ilaaliyo dadka ilaahay soo dooray oo xalaasha isku qaba yaan lix gil wal dulminin iyadoo la isleeyahay kuma